بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waa salaam yaa mudanayaan in marwooyin waxaan idin ka raali gelinaynaa intaynanu soo daahnay dabcan tuuleenu ka imanaynay wadadana waa xidhneed dabcan intaynu London ku jirnaa ayaa ka banday intaynu maartay daawiyadaha ka soo soconay marka hore waxaan leeyahay walaalkay aadan jaamacayno xildhibaana iyo marwo sahra cabdullaahi diiri ay la socdo iyadana labadoodaba iyo anigaba waxaan halkaan u nimid maanta inaan ka qayb qaadano sanad guurada 12 xilligii la asaasay ama la yeelay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxaan doonayaa cudurdaarkayga lagu darsanayaa inkastoo soo daahay waxyaabihii aan ugu talagalay inaan balcaawo aan dadka la qaybsado waan soo in baa idin soo habayaa inagoo ka tagay si waqtiga uga faa'iideysano arrimahan doonaya walaalayaal inaan ka wada hadalno ama aan xagga caawa ka soo tabiyo waxa weeyaan waa dhowr arrimood oo isku sidkan oo isuula dowladda loola insha Allah waxaan doonayaa in yar inaan ka hadlo kulli mar waliba dadku nimba meel buu halgaga kaga jira ama meel bay aqoontiisa iyo garashadiisa iyo maaragtay ay tahay marka anigu arrimaha taariikhda inta badan ayaan doonayaa wax yar inaan dib u riixo aan wax yar in yar geeyo qarniyadii 14aad 13aad ilaa 16aad arrimaha maanta ka taagan dhulkan loo bixiyay ama qasabka lagu qabsaday ee Ethiopia loo bixiyay dadka la haysto reer ogaadeen iyo inagu ma aha dad yoo badan ama shucuub badan oo waxa jiro qasab iyo sikir darra dhulkooda lagu bixiyay marka waxaan doonayaa inaan wax yar iftiimiyo saameynta ay wad maanta xaaladda taagan iyo 1400 ilaa 1300 saameynta ay leedahay saa la socotaan nafwaagii ama jabkii afaraad ee ku beegan xilligii ummadda Soomaaliyeed ee jabtay uu dhintay ama uu geeriyooday hogaamiyihii weynaa ee ummadda Islaamka ee geeska Afrika Ahmed Ibrahim Gezale oo magac dheer Ahmed Gurey jabkiisi ama geeridiisa ku astareed xilligii afaraad ama jabkii afaraad ayaa waxa dhacday nafwaagii ka dhacay dhulka Soomaalida ama ummadda marka ay hogaanka ama mayalka u hayeen ummadda Soomaaliyeed iyo dadyoobay ay la dagaalamayeen markaasi laba geesoodka ah ee dhinaca Tigreega ama Axmaarada ay iska soo horjeedeen ayaa waxa halka ka soo baxay fuf ummadan loo yaqaano maanta Oromada oo kale ay sameeyeen fufkaas oo ku wajahnaa sidii u sii wiiqi lahaayeen ama u sii dhameystiri lahaayeen halgankii dheeraa ee u dhaxeeyay ummadda Soomaaliyeed oo markaasi diin iyo dal u dagaalameysay kuna dagaalameysay hogaanka loo haysay iyo ummadihii kale ka soo horjeeday markaasi Axmaarada iyo Tigreega ah meeshaasi marka waxa ka dhacay arrimo aad u fara badan oo halkaan ku soo koobi karin laakiin waxaan doonayaa inaan tuso ama idin iftiimiyo dilaaca maanta ku yimid waxa beenta ay loo yaqaan Ethiopia ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia saameynta ay maanta ku leedahay waxa taagan maalinta walaalayaal waxa dhacay isdhalaro ama qaab cusub ayaa waxay yeelatay wadadii ama istiraatiijiyadii lagu hagayay waxa markaa gardarrada markaa taagneed ee buuraha waaweyn ee Abyssinia loo yaqaan ka soo dhaadhacisay ayaa waji kala yeelatay wajigaana waxa uu yeelay ummadii Soomaaliyeed ee markaasi halganka ku jirtay iyo dadka Oromada ah oo ka faa'iideysatay jabkii ku dhacay labada ummadeed ee is haystay marka waxa isbedelay qaabkii marka hore loo anqariyay ummadda la doonayay in Ethiopia cusub marka hogaamiso ayaa isbedelay waxa marka soo baxay saldanado ama amiirada yar oo ka dhismay deegaanada ku xeeran Lalibela iyo Aksum qaybna waxay ka dhisantay meesha maanta loo yaqaan Goojam ama area Bahardar laagta Bahardar meesha ilaa Dabra Burhan dhulka la yiraahdo Axmaarada tiganta ayay ka dhismeen halka marka waxa ka dhacay gulufyo colaadeed oo taariikhda in badan la qariyay marka aad baarto baad heli karaysaa dhibaatada gaadhay dadka Axmaarada ee meesha ku dhaqnaa iyo Tigreega ee ay gaarsiiyeen dadkii marka Oromada ahaa ee ka soo haajiray ama ka yimid deegaanada maanta loo yaqaan Bali iyo Sidamo iyo Hadiya ama dhulkan la isku yiraahdo koonfurta Ethiopia dhibaatada halka ka dhacday iyo gumaadka loo geystay dadkii Axmaarada iyo Tigreega waa mid la qariyay oo meelo badan oo caalamka inaad si qarsoodi ah ku hesho mooya aadan heli karin marka maanta saansaanta taagan waxa weeyaan taariikhda iyada dib isu saxda saansaanta maanta taagan qalabkii bariga dhacay mid uu ayaa maanta ka taagan qoomiyadaha Ethiopia gudaheeda marka taa hadda inta kaga yimaado waxaan doonayaa inaan iyadana ku darsado qodobkayga labaad ee ah burburka ku soo wajahan nidaamka gumeysiga ah ee Ethiopia qasaare iyo faa'iido intee leeg ayuu inoo leeyahay haddaynu nahay Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika
khasaarada ayaan ku horeynaynaa faa'iido waxaan filayaa inaysan xagga iyaga waxba faa'iido ballaaran ka jirin waxaa inagu soo foollay haddii arrintaasi ay dhacdo sida la filayo dhowaan barabax aada u ballaaran oo u baahan si geesinimo leh in looga hortago oo dadka Soomaaliyeed ee inta gacanta gumaysiga ku jirta iyo inta jamhuuriyadda Jabuuti ku nool iyo inta Soomaaliya ku nool ay foojignaan dheeri ka yeeshaan barabaxaas oo u bannaan doono dadka ka iman doono qoomiyadda Oromada iyo qayb ka mid ah qoomiyadda Axmaarada sababtoo ah dhulka sidoo uu kala gedisan yahay buuraleyda Itoobiya dhinaca waqooyiga dadku mararkii bandaaya la qaxay ama dhibaatooyinka dhaceen waxay u hayaameen dhinaca Suudaan qayb ka mid ah iyo qayb Central Africa ka mid ah ayay u hayaameen laakiin xoogga maanta halka la soo saari doono haddii hayaankaas uu soo dhaco ko wuxuu noqonayaa waa dhulkeena waa dhulka la haysta ee Ogaadeniya waa meesha ugu horeysa ee uu ku bixi doono barabaxa ama waxa loo yaqaano mawduuga nidaam ee ama siyaasadeed ama dhaqaale marka taa lafteeda dadka oo darasa arrimaha siyaasadda iyo isbedelada wajiyada cusub leh ee geeska Afrika ku soo socdo waxaa habboon in mar walba taa lafteeda ay ka foojignaadaan waxaan doonayaa inaan ku sigo qaybteeda saddexaad xaaladda ay ku sugan tahay jamhuuriyadda waxaa maanta loo yaqaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhawaanahan waxaad arkayseen qariirada ama hanaanka nololeed ama qofka Soomaaliga ah waxa uu doonayo iyo waxa uu diidayo in marin habaabin lagu sameeyay intii mid daawatay tagistu Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha inuu ku magacaabo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku tagay magaalada Jigjiga waxay yeelatay sawirro badan sawirradaasi qofka meel fog wax ka arkaya iyo qofka meel dhex wax ka arkaya iyo qofka aragtidiisa ee miiskan dhaafsisaneen nin walba waji ayay tustay ama sibay arrintaasi u saameysay aragtida fog madaxweyne Soomaaliyeed oo tagay dhul Soomaaliyeed oo la haysto waxay koow ka tahay daafur in la barakiciyo la gumaado la lahaado ummadda meesha ku nool dadka ku nool from laga soo bilaabo city gobolka city ilaa iyo soo liimaan ku nool ama sagaalka gobolka ku nool ummadda Soomaaliyeed meesha degan waxa aad arkaysaa in isbedelkoodii ama noloshoodii ay isbedel ku yimid maalintii uu tagay Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Jigjiga arrimaha dhaygaga keenay ama yaab kale waxay tahay tagistu waxay noqon karaysaa aragti isaga ka soo foftay maskaxdiisa laakiin hadallada uu ka jeediyay ama hadallada uu ku jawaabay ayaa waxay dareen dheeri geliyeen qof walba oo wadani oo Soomaaliya meeshu doona waxa joogo qofka Soomaaliga ah ee aragtida leh oo maanta sida uu hadlayo oo madaxweyne Soomaaliyeed ku jaangoon siyaasadeeda waxa weeyaan waa sawirka muhiimadiisa la doonayo waxa weeyaan halkaas uu tagay dadkaas uu la kulmay dadka uu la kulmayna waxay uga dhigan tahay gobol ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliya ama gobol ka tirsan dhinaca Itoobiya halka haddaan tafaasiil ka sii bixiyo kaniisadaha Itoobiya 1700 gabagabadeedii waxaa jiro waraaqa caalami ah oo dunida u kala direen kuwaas oo inta badan ku beer la xawsanayay adduunyadii markaasi dunka weyneed ee ummadaha hogaaminaysay in ay ku soo socoto badweyn siyaasadeed oo ummad Soomaaliyeed oo diin islaam wadata inay ku soo furleedahay marka sida looga qaban lahaa arrintani marka maanta taagan sida hore sheegay niman siba u aragtideeda u arkaa waa arrin marka u baahan in la fahmo oo la darso taariikhdaasi waxay sheegaysay halka ay ku jaangooneyd waxa ay ku soo socotay iyo halka maanta ay tahay walaalayaal Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka aad koorkiisa doonayso shaadkiisa lagu qabsadaa in dawladda Itoobiya maanta ay laga soo bilaabo waqooyi ilaa iyo koonfur ay say doonta ka yeesho ama ay fargelin ku hayso ama ay bahdil ku hayso waxay astaan u tahay inay xalaalaysato dhulka Ogaadeniya iyo dhulka NFD oo labadaba ah dhul dastuurka Soomaaliyeed ku xardhan inuu yahay dhul la haysto oo gacan shisheeye oo cadow ay ku jiraan waxaan doonayaa marka inaan isdul taago mar kale arrintan imanka dhacday walaalayaal ummaddu waxay u baahan tahay saan hore hadda ka hor halka nooga sheegay iyo meelo badan ummaddu waxay u baahan tahay dareenka ay leedahay inay muujiso waa maxay dareenka aad leedahay dareenka aan leeyahay wuxuu noqon karaa mid siyaasadeed iyo mid nololeed iyo mid dhaqaale maxaa inoo diiday inaynu afka furano oo aynu ka hadalno waxa loogu yeero halgan Soomaaliya
hadda ka hor Dr. Rabi Allah naxariisto nin qoraa weyn ahaayo philosopher weyn oo reer Djibouti ah ayaa wuxuu yiri inta qofka Soomaaliga uu qoriga sito Soomaalinimada way jirtaa ogaadeenaya jamaacada wadaniga xoreynta ogaadeen intay jirtaan waxaan aaminsanahay xorriyad la doono wajigisa waxa kale oo qurux badan oo u baahan inaynu isla fahanno dhaadashada qofka muxuu ku dhaadan karaa qofku wuxuu dhaadan karaa wax asaga leeyahay jamaacada wadaniga xoreynta ogaadeen maanta waa jamaacada kaliya ama waa dadka kaliya ee Soomaaliyeed ee loo oran karayo waxay u taagan yihiin aragtidooda iyo caqligooda iyo garashadooda waxay ka taagan tahay ama ka tarjumaysaa inay xoreeyaan ummad la bahdilay oo dhulkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodii intaba la doonayay la faquuqo waxaan markaa aan taaraacinayaa qof kasta oo Soomaaliya maanta daabiyad kasta ku nool laga soo gaaro yacdo ilaa iyo kudaan dadka jooga waxay ka cabanayaan xorriyad darro qof kasta Soomaaliya wuxuu leeyahay waa nala haystaa wariyaa idin haysta qofka waa inuu horta isweydiiyo cidda haysata qof aan isaga maskaxdiisa aragtidiisa aanan xor u ahayn wax ma xorey karaya weeyaan ujeedada waa maya qofka doonaya inuu ka xoroobo Ethiopia imika siyaasiyiinta intooda badan waxay leeyihiin ama ay ka dhawaajinayaan inta badan Soomaaliyeed aad ba maskaxda dadka inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay aad uga dhawaajinayaan inay jiraan in la yiraahdo gabre iyo gadaajo iyo girmay iyo balaayo dhan iyo afakaado iyo ay u taliyaan Soomaaliya dadkaasi yaa keenay Soomaaliya saaru sheegay yaa meeshaasi u xaarxaaray inuu ka taliyo waa dad isla Soomaaliya walaalayaal waxa weeyaan waxa labada runta isu sheegin been baa u qarsoon qofka Soomaaliya doonaya inuu xoroobo koow waxa ay inuu taageero war horta waxa la yiraahdaa habeenkiina hoos baa loo hadlaa dharaartina hareeraha laga eega war horta yaa jamaacada wadaniga oo xoreyn wax ina xoreyso doonayso waa inuu qofku isweydiiyo waa jamaacad kale maanta oo Soomaaliyeed oo geed iyada ay leedahay tala iyada ay leedahay arrin iyada ay leedahay ku socoto oo aan ogaadeenayo aan jumhadan ahayn ee ma jirto aragtida kale saafay ummadda Soomaaliyeed ee dhiigooda iyo dheecaankooda Soomaali baabi'iyay ee qabyaalada ah taasina waxa weeyaan waa mid mar walba u baahan in loo yeesho il ama foojignaan dheeri ah ani waxaan markaa ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed ee doonaysa inay heeryada qoyan waliba heeryada qoyan iska dulqaado waa inay taageeraan jamaacada wadaniga xoreynta ogaadeenaya sababtaan sidaa u leeyahay walaalayaal anoo doonayna soo gunaanado waan idinka raali gelinayaa waxa weeyaan in badan halka waan ka sheegay ummadani Soomaaliyeed meesha loo wado iyo halka ay iyada doonayso waa kala labo ilaahay dhulka ummadda Soomaaliyeed ama ruuxa Soomaaliga uu dajiyay waa dhul istiraatiiji ahaan ama juqraafi ahaan ku jaan go'an rabitaanka qofka Soomaaliga afka Soomaaliga waa gumaysidii dhiigga iyo dheecaanka iyo dhalashada iyo dheeha ummadda Soomaaliyeed waa gumaysidii laakiin waxaa jira tafiir baa jirta ama shinida waxa la yiraahdaa dalaga marka la beerayo haruurka ama masagada ama galleyda waxa jira waxa la yiraahdaa shini ama abuur shinidaasi haday wanaagsan tahay waxaad filaysaa inuu kaaga soo baxo abuur wanaagsan oo qurux badan haddii laakiin baali tahay oo wanaagsaneen dee waxaad filaysaa karis xun iyadana ku waxla maanta waxa la beerayaa shini xun oo cadowga iyo shisheeyaha iyo nasabdiidka iyo Soomaali ka cararka dad xambaarsan ayaa la beerayaa odayga maanta intaa ku dhaqmaya inankiisa muxuu noqon doonaa odayga maanta oo galkeenada cadowga inuu la geliyo ee shinidiisa la bedelo ee duriyadiisa magac kale loo bixiyo inanka uu dhalay ama inanta uu dhalay maxay ku faani doontaa bari waa waxba waxaan u baahanahay ummadda Soomaaliyeed in shinideedana la badbaadiyo ayaa loo baahan yahay ta kale aan ku soo gunaanaday waxa weeyaan hadalka waa iga dambeyn doonaa wax badan oo sheegi lahaana dib baan u dhiganayaa insha Allah walaalayaal dadka caawa halkan fadhiya waa dad dhan iyo dhasheed ah waa dad walaalo ah magac baa suuqa ay keenay magaca aad ku hiiranayso waxaa jira qof gaad ka haya oo ilaalinaya oo daranyada ka ilaalinaya oo furxamada ka ilaalinaya oo cayda ka ilaalinaya qofkaasi in loo hiiliyo ayaan u baahnaa ninka Soomaalinimada ilaalinayo waa ninka diidan in Soomaalinimada laga kaxeeyo dadka marka caalamka naga daawanayo waxaan u sheegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee meel walba ku baahdilan ee asaagood nin asaagooda oo yani keenada ugu jira ama u dabran ama u seetaysan waxaan u sheegayaa inay iska daayaan mal awaalka ah
waana la haystaa iyo gobol heblaayaan nahay iyo maxay hebel kalaa nahay waa inay u istaagaan inay garab siiyaan walaaladeen jamaacadda wadaniga xoreynta Itoobiya ogaadeenaya waxaan u leeyahay horena waan u sheegay kaftankayga ugu dambeeyay wuxuu ahaa gogashayna loo ballaariyo ogaadeenaya waynu wada leenahay qof Soomaali oo ka marana ma jiro laakiin waxaa jira maran habaabin dad maran habaabinaya qadiyada ayaa jira oo caawis oranaya abrone muxuu ka dhax doonay jaalidaasi kaasi waxaan u sheegaynaa Soomaalidu waxay tiraahdaa hal dilees geedo ku xoqoto ma weydo qofka marka uu doonayo inuu qofkiisa raadsado wadada u mar laha uu helaya ogaadeenaya waa dhulkayga weeyaan awooyaashii waa ku aasan ayeeyaashii waa ku aasan adeeradii waa ku aasan waa dhulkayga weeyaan marka waxaan u baahanahay kaliya inaanu fahanno hadalkaygu wuxuu ahaa gunaanadkiisa inaynu fahanno waxyaabaha aynu doonayno inaynu isla meel dhigno waxyaalaha aynu doonayno isla meel dhigno waxaa ka mid ah ummadani Soomaaliyeed ee qurubka loo goostay ee daabiyad loo kala xidhay ee ab iyo isir la kala wiciyay sidee looga badbaadin karayaa cadowga mid kaliya weeyaan qof kasta oo Soomaaliyeed hadduu hal kelmad yiraahdo kelmadaas waa ku guuleysanayna kelmadaas oo ah ogaadeenaya inuu xoroodo ogaadeenaya haddii xoroodo waxaa jira wax la yiraahdo moos ama daadka uu soo jabaa daadka moos baa laga horgeeyaa hadda halkii waxa ku jira ninka shaafkiis kawrkiisa doonaya shaafkiisa lagu qabsadaa ogaadeenaya haddii xoroodo daadadkan iyo gumaysigan iyo dhibaatadan soo talaabaysa ma jiri doonto insha Allah waxaan rajaynayaa sidaas ka qurux badan ka farxad badan ka dhiiranaan badan ka aragti wanaagsan inaynu ku kulmi doono haddii Ilaahay yiraahdo waxaan idin rajaynayaa shacabka deegaanada ku dhaqan ee dhibaataysan ee diihaalaysan ee hooyooyinka dhiban ee rafaadsan carruurta dhalaanka yani iyo samiga dhiban waxaan u rajaynaynaa inuu heli doonaan rag iyo rabbi inay lahaan doonaan insha Allah waxaan kaga tegayaa walaalayaal meel walba waxaa loo baahan yahay in la iska muujiyo madal kasta oo lagu hayo danta Soomaaliyeed in la iska muujiyo jamhadan wadaniga xoreynta ogaadeenaya ama reer ogaadeenaya howlaha ay qabatay xiriirka ay la sameysay jamhadaha kale ee ka soo horjeeda gumaysiga Itoobiya waa mid aan idinku boorinayno waa howlaha annaga aan wadno waxaan u baahanahay marka inaan waxyaabo badan iska aan iska kaabno garashada aan iska kaabno aqliga isu geeyno dhiiranaanta isu geeyno raggan saraakiisha ee halkan fadhiya qiimaha badan leh iyo madaxda jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenayana waxaan leeyahay mar kale anoo ku soo celinayo waqti waa iman doonto yani ummadani ay noqoto ummad aayaheeda iyada ka tashato ummad dib ugu soo noqoto caalamka wax la weydiiyo insha Allah